munaasabadan lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee hablaha adduunka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana ka qabsoontay xarunta ururka hablaha ee loo soo gaabiyay CGE. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha ururkaasi Nawaad Xasan Cumar oo sharaxaad ka bixisay qiimaha ay maalintan u leedahay hablaha adduunka. Sidoo kalena waxay sheegtay in xuskan uu yahay kii ugu horreeyay ee lagu qabto Somaliland. ururka dhalinyarada hablaha CGE waxaan maanta xusaynaa oo aan halkan xarunta isugu nimid inaan xusno maalinta hablaha adduunka oo ah maalinta 11 Oktoobar oo aan horena looga xusin Somaliland oo aan leenahay hablihii halkee lagu iloobay xafladan oo nagu tala garnay hablaha da'doodu ka yar tahay 25 ilaa 4 jir ururka CGE waa urur hableed oo dhammaan ah Somalilanders waa urur ay ka midaysan yihiin hablo koox ah oo u dhashay dalka Somaliland. ururku wuxuu ka shaqeyn doonaa yoolalka horumarka goal 4 oo ah educationka waxbarashada 3 oo ah caafimaadka number 8 oo ah kobcinta dhaqaalaha iyo number 5 oo ah gender issue oo xagga womenka iyo hablaha aanu kala shaqeyn doono ururka CGE wuxuu u taagan yahay kobcinta hablaha Somaliland iyo dhiirigelinta xirfadaha kuwa leh iyo kuwa aan lahayn. xarunta CGE waxaa la aasaasay 2018 oo ah sanadkan iyadoo la aasaasay 2017 haddana wuxuu si sharci uga dhaqan galay oo wasaaradda horumarinta iyo wasaaradda planning uu ka registeraysan yahay waxa weeyaan sanadkan. ururkan CGE waxaa aasaasay hablo dhalinyaro ah oo isu yimid oo aqoon leh hadafkooduna wuxuu ahaa sida ay u horumarin lahaayeen xirfadahooda aqoonta iyo sida ay hablaha Somaliland hablaha kale caalamka kale ay ula qaybsan lahaayeen xirfadaha iyo iskaashiga iyo yoolalka horumarineed ee hadda lagu jiro in la gaadho xagga waxbarashada haday noqotay xagga caafimaadka iyo xagga kobcinta dhaqaalaha inay reer hablaha Somaliland ay la mid noqdaan hablaha kale lana qaybsan karaan wax walba ogaadaana in sida ay u shaqeynayaan hablaha adduunka kale. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, Hargeysa.